Ragga guursada haweenka gabarnimada 30 sano ku dhaaf oo la siinayo lacag dhan 50,000 oo doolarka Mareykanka ah. Si aan ugu dagalno muuqaalkan walaal waxaanu ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share gareysa si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim Calaadan mahadsanidin badan. Dalka Sacuudiga ayaa waxaa ku badan haweenka doobnimada ku gaara 30 sano oo aysan inta badan haweenka wadankaasi gaari jirin amaba xilligaasi ka hor nin la sii jiray. Haweeneyda gabarnimada ku dhaafta 30 sano isla markaana aanay horay guur u soo marin ayaa ninka ka dhameeya amaba ku qanciya in uu guursado oo nolosha uu la wadaagayo sida ay qabto shareecada Islaamka ayaa waxa uu ku mutaysan doonaa dalka Sacuudiga abaalmarin ay dawladdu siinayso iyadoo dawladdu ay guurkiisa kaabayso sidoo kalena dhaqaale ay siinayso. Balse ragga ayaa waxaa sharci looga dhigay amaba ninka haweeneydaasi guursanaya in uusan furi karin isla markaana ay iyadu ku qanacsan tahay oo ninkuna uu raali ku yahay. Gabadha iyo ninka ay guursanayso ayaa la weydiin doonaa sida ay isugu qanacsan yihiin iyadoo gaar loo weydiinayo su'aalo waxaana sidoo kale la marsiinayaa imtixaan ninka gabadhaasi guursanaya guumeysta ah amase 30 sano doobnimada ku dhaaftay si loo hubiyo ka go'naanshaha in uu gabadha si wanaagsan nolosha ula wadaagayo ninku oo uusan lacag doon kaliya ahayn balse dhaqaalahaasi lagu taageerayo. Sidoo kale waxaa ninka gabadhaasi 30 sano jirta amaba 30 sano dhaaftay amaba ay Soomaalidu u taqaan guumeys ayaa waxaa ninka la doonayaa in uu sidoo kale qanciyo ehelada gabadha oo ay iyaguna dhankooda ku qancaan ninkan doonaya in gabadhooda da'da ah uu guursado. Dhanka kale waxaa shuruudaha ninka buuxiya laga taageeri doonaa baahiyaha qaar ee soo baxa taasi oo ay kifaalo qaadayso dowladda Sacuudigu balse lacagta 50,000 ee doolarka Mareykanka ah ayaa marka uu guursadaba gabadha 30 sano dhaaftay amaba Soomaalidu ay guumeysta u taqaana isla markaasiba la sii doonaa. Dowladda Sacuudiga inkastoo ay barnaamijkan cusub ay guurka ugu raadinayso haweenka da'da ah amaba guumeyska loo yaqaano balse waxay arintani soo jiidatay rag badan oo caalamka wadamo kala gedisan ku nool kuwaasi oo ka helay amaba doonaya in haweenkaasi ay guursadaan si ay dhaqaale uga sameeyaan maadaama ay dawladdu carabaabtay in 50,000 oo doolarka Mareykanka ah la siinayo sidoo kalena la kaabi doono ninka guursada haweenka da'da ah ee wadankaasi amaba 30 jirka dhaafay.